بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، walaalayaal, waxaan ku guda jirnaa oo inoo bilaabatay tobankii dhexe ee bisha soonqaad ee barakaysan ee allah subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celinayno maadaama uu nicmarsiiyey uuna soo gaarsiiyey. marka sida suubaneed ka sugnaatay maxamed ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh ee uu inoogu sheegay axaadiistiisa ee uu ku sheegay bisha soonqaad inay u qaybsato saddex qaybood. qaybta hore waxa uu yidhi nabigeena maxamed ahaa salawaatullahi wasalaamu calayh, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo fidinayaa naxariis. qaybta dhexana suubanehna wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ina siinayaa dembi dhaaf oo dunuubteenna ayuu inoo dhaafayaa haddii aanu ka toobadkeenno. qaybta saddexaad tobanka ugu dambaysa oo ay ku jirtaa laylatulqadarkana suubanehena waxa uu ku sheegay in allah subxaanahu wa tacaala uu inaga xoraynayo naarta. ilaah ayaan ka baryayaa in uu naga magdhigo addoommada alleh subxaanahu wa tacaala ee uu ka xoraynayo naarta. marka walaalayaal, waxaa wanaagsan marka maadaama fursaddaas ay jirto khaaliqeenna uuna waafajiyey in aynu la nimaadno toobadkeen, istikfaar iyo dembi dhaafna in aynu ka dalabno allahena weynaa ee khaaliqeenna ahaa in aynu ka dalabno oo aynaan ka quusan si kastoo aanu u dambaabno ama gefaf ay nooga dhacaan in aynaanan ka quusan naxariista allah subxaanahu wa tacaala. sababtoo allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaaba kitaabkiisa ku yidhi oo noo sheegay nabigeena maxamed ahaa salawaatullahi wasalam caleyh uu noogu barbalaariyey isagana muxuu ahaa aqwaashiisa. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa, qul yaa cibaadi aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah. qul waxaad ku tirahdaa sayidka maxamed oho, yaa cibaadiya aladiina asrafuu, addoommadayda kuwa xadgudbayow ee ay la simbirixatay nolosha, laa taqnatuu ha ka quusanina. haddii aad dambowdaan oo aad gaftaan ha ka quusan naxariista allah. ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, ilaahay waa alla noo dhaafaya dunuubta oo dhan ila shirku billah. dembi kastoo aad la timaada ilaah waa u dhaafayaa. ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, allah waa allihii dhaafa dunuubta oo dhan haddii aan lala wadaajin milkigiisa cid kale oo aadan caabudin cid kale oo aadan shirki ku kicin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo ballan qaaday inuu naga dhaafayo dunuubteena oo dhan. subanehna sida uu sheegay wuxuu yidhi, khaaliqeena kor ahaaday marka la joogo habeenkii, weliba saddex dalool marka loo qaybay habeenkii, daloolka ugu dambeeya marka la joogo, allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo dhaadhacayaa samada lagu magacaabo samaa dunya. markaasu wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya addoommadiisa, hal min taa'ibin, hal min mustakfirin, hal min mustakiithin. ma jiraa addoommadeedii yahay mid dalab ah ama dalbaya toobadkeen si aan uga toobad aqbalo. sidoo kale ma jiraa mid dembi dhaaf dalbanaya oo weydiisanaya in loo dembi dhaafo si aan ugu dembi dhaafo. sidoo kale wuxuu leeyahy allah subxaanahu wa tacaala, ma jiraa mid gargaar dalbaya si aan ugu gargaaro. marka boqorkii iska lahaa adduunyada aynu ku nool nahay, samooyinka oo dhan, waxa ku dhex jira iyo waxa ku hoos jira iyo waxaan aragnay iyo waxaynaan arkaynba, allihii boqorka ahaa ayaa sidaas kugu leh. marka waxaan u malaynayaa wax ka wanaagsan inaysan jirin. allah halkaas waxaa noogu cad allah inuu yahay ra'uufur raxiim, mid u tura addoommadiisa oo u naxariista inuu yahay. diinteennuna waa diin muxuu ahaa alle uu nooga dhigay mid yusri ah. haddaad orado xoolo far badan aad kasbato, carruur far badan aad dhasho, daaro qurquxoon aad yeelato, wallaahi yo bilaahi caawa hadday nafta kaa dhacdo, hooyada dhashay carruurtaada haddii ay
ku tiraahdo mid ka mid a carruurtaada kan ay ugu jeceshahay waliba ay ku tiraahdo bal caawa la seexo aabbaha waxaa laga yaabaa wiilkaas xitaa in uu kuu quuri waayo aabanimada uu yidhaahdo hooyo maydka mari unbaa la saarsaaraa oo albaabkan waa loo soo laabaaye hooyo iga daa inuu yidhaahdo ayaa dhici karaysa marka walaalayaal wax kastoo gef ee kaa yimaada allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaaba diyaar ku ah la imow toobadkeen la imow alla waa uu kaa dhaafayaa waxaanu ku jirnaa 10kii dhexe ee bisha ramadaan marka maadaama allah subxaanahu wa tacaala sida uu noo sheegay suubanaheena maxamed ahaa aanu ku jirno waqtigii dembi dhaafidda bal aanu la nimaadno istikfaar fara badan aanu la nimaadno allah subxaanahu wa tacaala waa inaan ugu mahad celinnaa maadaama uu naga dhigay ahlu tawxiidka iyo ahlu iimaanka isla mar ahaantaana uu noogu deeqay uu noo hibeeyey nicmada islaamka allah subxaanahu wa tacaala isaga ayaa mahaddaas iska leh aan badinno markaa walaalayaal istikfaarta aanu badinno maalmaha aanu ku dhex jirno ee haddan ma aha ramadaan keliya xilli kasta oo ka mid ah xilliyada aad noosha iyo sanadka oo dhanba istikfaarta aanu badinno oo aan u dhowaano allahna subxaanahu wa tacaala dembi dhaafna aan ka dalabno sida ay soo wariyeen albukhaari iyo muslim yaa waxay yidhaahdeen abu dhar alghafaari ayaa habeen habeenada ka mid ah wuxuu ka soo baxay gurigii dabadeed waxa uu arkay suubanayna maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh oo socda oo keligii ah ayuu arkay markaasuu wuxuu qaatay suubanayna in uu kahanayo in cid kale ay la socoto markaasuu iska socday gadaashii cabbaar markaan socday buu yidhi abu dhar alghafaari ayuu suubanaheenna dareemay uu soo jeestay markaasuu yidhi waa kuma ninka idaba socda markaasuu wuxuu yidhi abu dhar waa abaa dhar alghafaari rasuulka allow markaasuu yidhi abu dhar oo kaale oo soo soco markaasaa waxaanu yidhi socodka ayaana sii wadannay ilaa saacad markaan soconnay ayaa suubanaheen maxamed ah salawaatullahi wasalam wuxuu ku yidhi abu dhar ina almukathiriina ya abaa dhar hum almuqiluuna yowma alqiyaama ila man actaahu allah khayran fanafaxa fiihi yamiinan wa shimaala wa bayna aydiih wa waraah wa camila fiihi khayran taasoo micnaheedu uu yahay abidarow dadka taajiriinta ee xoolaha haysta maalinta qiyaamaha waa kuwa ugu ajarka yar ilaa ruuxa xoolaha alla uu siiyey ee markaasi wejiyada khayrka ku bixiya mooyaane ee midigta ka bixiya bidixda hortiisa gadaashii oo khayr sameeya oo wax alla wixii allah uu siiyey jidkii loogu talagalay ku bixiya mooyaane marka waa tii aayadda allah subxaanahu wa tacaala ay tiri innamaa amwaalukum awlaadukum fitna xoolaha aad heshaan waa xoolihiinne iyo carruurtiinaba waa fitna waa jarribaadi waa imtixaan waa lagugu jarribayaa waa lagugu imtixaanayaa sida alla uu kuu siiyey ayaa loo bahay adna inaad ugu naxariisato ummadda kale ee kaa hoosaysa marka wuxuu yidhi abidar intaa kadib haddana waxaanu soconnay muddo saacad kale ah ayaanu soconnay markii dambe nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalamu caleyh wuxuu fariisiiyey meel yaro hoose ahoo dhagxaan ay saas ugu wagaarsan yihiin oo saasi ah oo xaraa iska ah ayuu yidhi abidarrow halkan ii fariiso igu sii sug kadibna wuu sii socday socodkiis ayuu sii wata uu yidhi marka ilaa uu ka mirqay oo ishaydu ay qaban weydo muddaan meeshii fadhiyu yidhi kadibna abudar wuxuu yidhi nabigeenna wuxuu igu soo laabtay isagoo leh wain zanaa wain saraq wain zanaa wain saraq wain zanaa wain saraq isagoo ku celceli kelmaddaa markuu ii yimid ayaa waxaan weydiiyey muxuu ahaa waan sii samri waayuu yidhi oo waa u dulqaadan waaye waxaan doonaya inaad deg deg u weydiyo wain zanaa wain saraq meesha ujeedadeedu waxa ay tahay markaasa waxaan ku yidhi rasuulka allow cidi kula socotana maanan arage waxaadna ku celcelinaysay ereygaasi ah wain zanaa wain saraq maxaad ula jeeday markaasuu abaadarow waxaa igu soo degay malakul jibriil wuxuuna igu yidhi u bishaaree ummadaada waxaadna ugu bishaaraysaa man maata billahi walam yushrik bihi shay-a dakhala aljanna ugu bishaaree
qof alla qofkii ka mid ah ummadaada oo tawxiidka ku dhinta isagoo qirsan micnaha kelmadda ah laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ma jiro ilaah kale xaq lagu caabudo alla mooyaane kelmaddaas ruuxa qirsan oo alla aanan u shariik yeelin oo aan milkigiisa la wadaajin cid kale u sheeg in uu axadkaas uu gelayo jannada macaasi intuu doona ha la yimaadee taasi waxay la micno tahay micnaha inuusan ku waarayn naarta markaasaan waxaan ku idhi rasuulka allow wa in zanaa wa in saraqa mar kale aan ku celi yidhi markaasuu wuxuu igu yidhi jibriil nacam wa in zanaa wa in saraqa haa haddii uu waxado iyo haddii uu zinaysta intaba mar labaad ayaan ku celi yidhi markaasa waxaan ku yidhi wa in zanaa wa in saraqa markaasuu wuxuu igu yidhi nacam xataa wa in shariba alqamra xitaa haddii uu khamriga cabo jannada waa uu gelayaa alimaam nawowi raximahullah imaam nawowi allah u naxariistay ayaa waxa uu yidhi ahlulcilmiga ee ahlulxaqa kuwoodii hore iyo kuwooda dambe waa salafkii iyo khalafkii waxay isku raaceen ruux allaale ruuxii geeriyooda oo nafta ay ka baxdo isaga oo waxidsan allah subxaanahu wa tacaala oo qirsan waaxidnimadiisa in allah uu keli yahay cid kale aanay la wadaagin milkigiisa qofkii geeriyoodaa macaasi intuu doona ha la yimaadee waxay isku raaceen buu yidhi salafka iyo khalafkaba in ruuxaas uu gelayo jannada oo aanu ku waarayn naarta marka laga soo oofsado wax allaale wixii dunuub ahaa ee uu la yimid ciqaabtooda marka uu soo maro allah subxaanahu wa tacaala addoonkaas waxa uu ka soo saarayaa naarta wuxuuna gelayaa jannada maadaama uu isagoo waxidaya allah uu geeriyooday sidoo kale ruuxa isagana gaalnimo ku dhintaay oo isagoo gaalaa dhinta khayr intuu doono khayr ha sameeyee ruuxaas isaguna ma urinayo jannada oo ma gelayo jannada sababto ah waxa uu khayrkaa uu samayn jiray faraha badnaa waxaa ka dambeeyey muxuu ahaa kufrinimo gaalnimo ayaa ka dambaysay marka walaalayaal waxaanu ku jirnaa tobankii dhexe ee bisha ramadaan ee barakaysan ee istikfaarta nabigeena maxamed uu nagu booriyey istikfaartu aan la nimaadno dembi dhaaf aan weydiisano rabbigeena subxaanahu wa tacaala si uu inoogu dembi dhaafo marka insha allahu tacaala waxa wanaagsan waxa khayrka inaynu isfarno maadaama aynu ku jirno bisha ramadaan ee barakaysan iyo bilaha kale intaba marka ha la iscafiyo cafisna ha la weydiisto allah subxaanahu wa tacaala guud ahaan ummadaha muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyed meel kastoo ay joogaanba qaybtan maantana intaan ayaan kusoo gaabinayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu